ma rabtaa adiga oo aanan wax muuqaala haba yaraatee samaynin in aad YouTube-ka lacag aad ka samayso, welibana ayadoo zero lacag ah ay kaaga baxayso, wax lacag aan kaaga baxaynin, waqtiga ugu yarna aad ku samayn karto. waxaa samayn doontaa muuqaalo cajiib ah oo dhinacyo badana lacag ay kaaga soo geli doonaan haddii aad diyaar u tahay inaad samaysid. waana fursad cusub, la tijaabiyey, la ogaaday oo ribix laga heli karo. ila soc muuqaalka aan bilaabano. markaad dalkan aad ka aragtaan waxaan soo galna marka Amazon website-ka Amazon-ka weyn aad taqaanaan ee alaabada lagu iibiyo. anaga marka waxaan raadinaynaa oo keliya alaabada ama productiga hoostooda ay taalo muuqaalo laga sameeyey. ma raadinayno kuwo sawir leh oo keliya. sida idiin muuqato hadda waxaan rabnaa inaan galno kuwa leh muuqaal fiican leh, weliba ma rabna haafa oo dhinacyada ka madoob oo kale. waxaan raadinaynaa video muuqaal, waxaan raadinaynaa oo keliya oo full ah. si fiican u fiirso, ma rabno kuwo dhinacyada ka madoob ama haaf ah oo lasoo gaabiyey, ma rabno. waxaan u baahannahay muuqaal dhammaystiran oo maaragtay oo full ah, oo maaragtay quality-giisu fiican yahay, oo productiga si fiican ugu shaqeynayo. productigaas marka wuxuu leeyahay sida hadda inoo muuqato, productigan baashaan cooker-ka ah hadda soo qabanay oo first page-ba ka muuqato. haddii aan galno gudaheeda waxaa arkaynaa hoos waxaa ku yaalo productiga waxyaabo sawiro lagu bixiyo. sawiradaas marka ma rabno. qaybtan kale waxuu leedahay videoga marka halkan markaan keensano waa arkaynaa videoga coduu leeyahay. codka aan iska xirno ma rabno. marka codka aan gudaha usoo galno videoga waxaa arkaynaa inuu dhammaystiran yahay, uu full u yahay, quality-giisana uu fiican yahay. marka hadhowdii adiga markii aad rabto waxaa samaynaysaa editingka. markaad samaynaysid waxaa ku darsanaysaa codkii aad doonto, ama codkaaga saaro ama codod kale, ama waxaad doonto markaas saaro codod kale, qof kale iska saar sidaad doonto. marka adiga ugu samey waxyaabo kale, effects kale kusoo dar, sii qurxiso. videogaasna waa free, waayo dadka iskale way ugu talagaleen in productigaas la bixiyo oo maaragtay la xayeysiiyo oo video laga sameeyo. digniin marka iska ilaali muuqaalada ama productigeeda qaarkood ee hoos ku yaallo waxa ay wataan si toos ugu xiran yihiin muuqaal YouTube-ka laga soo qaaday. marka kaasoo kale ha qaadanin midka YouTube-ka laga soo qaado, waayo markii hore YouTube lagu upload gareeyey oo la geliyey. hadda adiga isticmaasho marka waxaa laga yaabaa inaan copyright lagugu qabsado. laakiin kan caadiga ah ee shirkadu leedahay ee iyadu ay samaysay video toos ah waaye, halkaasuu yaalaa. marka kaasaa kaga qaadan kartaa. tusaalaha labaad marka haddii aan fiirino productigan kaleeto waxaa aragnaa waa sidoo kale waa video oo muuqda oo wanaagsan. videogaas marka haddii aan weyneyno waa arkaysaa wuxuu yahay waa video aad quality-giisu u sareeyo oo productigana ka sheekeynayo. marka labadaas tusaale waa kugu filan tahay. adiga sii raadi, productiga way badan yihiin. Amazon gal, AliExpress gal, ani website kasta ee alaabo lagu kala iibiyo productiga fiiri haddii uu leeyahay muuqaalkaas freega ah qaado, editing yar ku sameey, YouTube-ka geli. qaabkaas waxaa ku samaysay muuqaal oo adiga waqti badan kaaga bixin, lacag aanan kaaga bixin, juhdi badan aadan gelinin. waa edit garaysay, kadibna waxaad gelinaysaa YouTube-ka. halkaasna waxaad ka qaadanaysaa viewskaaga. halkaas ayaad marka lacag kaga kasban kartaa. midda kale muhiimka ah waxaa waa tan labaad ah ee qaabka lacagta ugu samayn karto isla videogaas. laanna waxaan rabnaa hal dhagax inaan 2 shimbir aan ku dilno. dadka qaar ka badan ay sameeyaan. tusaale haddaan usoo qaato muuqaalkan idiin muuqdo ee YouTube-ka ah, qofkan wuxuu sameeyaa product waa review. asaga marka ma laha sidaad idiin sheegno videoyaasha wuxuu kasoo qaatay Amazon ama website-yada kale. ka dambana wuxuu keensaday YouTube-ka.
kadib wuxuu ku xiray sida hoos aad ka aragtid affiliate link. waa meeshaas marka lacag ayuu ka sameynaa iyadana. muuqaalka videoga gaar waaye, viewska la wada fiirso asagana waa gaar, waa shuqul iskuma laha. laakiin affiliate linkiga halkaas haddii aad click siiso wuxuu ku geynaa marka halkii alaabta uu kasoo qaado ama productiga lagu iibinayo. markaa meeshaas tagto waxaa arkaysaa muuqaalkii meesha uu keenay oo yaallo. marka haddii ujeedadaas waxay tahay marka haddii adiga productiga aad iibsato asaga wuxuu ku leeyahay commission, lacag ayuu qeyb ayuu ka qaadanaa. waa nooc min dalaal ah. alaabtaas ayuu iibgeeyey kadibna marka wuxuu ka helay lacag. waa hal dhagax oo 2 shimbir lagu dilay. taas macnaheedu maxay tahay? muuqaalka oo la daawaday waxa uu ka helay YouTube ahaan, viewskaas wuxuu ka helay lacag. alaabtaas uu dadka tusay oo la iibsadayna wuxuu ka helay lacag. marka labada jeerba lacag ugu helay. muuqaalkiisa iyo videogiisa ama YouTubekiisa guud ahaana haddii uu sii balaarto waxyaabo kale badan ayuu sii sameyn karaa. laakiin muuqaalada kale ayaa idin tusi doonaa. waxaan rajaynayaa marka inaad fahamteen qaabkaas fudud ee wanaagsan wax dhibaynin inaad u sameyso YouTube copyright waxba kugu qabsanaynin. keliya marka waxaan rabaa inaan kuu sheego mid tala ah. taladaas waxay tahay ha qaadanin muuqaalo fadlan ee ka muuqato waxyaaba anshaxum ama qaawni. sababtoo ah productida qaarkood la xayeysiinayo waa naqaanaa. adiga marka aqligaaga adeegso, diintaadana ilaasho, adiga ayaa iska leh. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.